waan ku salaamay daawade meel walbo aad joogtid kuna soo dhawow qaybtii xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. qaybtii 8aad waxay inoo joogtay meel xasaasi ah. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa fariid ayaa markaasi kadib waxa uu soo kala dhex galay hadalkii u socday yaara iyo sidoo kale marwaan, waxaana uu yidhi anigana waan kuu mahadcelinayaa, hawsha aad qabatayna waan bogaadinayaa, waxaana rajaynayaa qofka aad meydkiisa keentay in hilbihiisa aaday u macaan yihiin. fariid markii sidaasi uu yidhi marwaan ayaa dhankiisii soo eegay, balse yaara ayaa marwaan waxay ku tidhi hadalkiisa waxba ha ka soo qaadin, kani waa wax waalan. intaasi kadib marwaan ayaa goobtii isaga tegay, balse ka hor inta uusan bixin ayaa yaara waxa uu ku yidhi sidaan horey ugu heshiinayba 2 saacadood kadib ayaan soo laaban doonaa si aan wax walba meesheedii ugu soo celiyo, ileen qabri faaruq ah ayaan ka soo tagnay. marwaan iyo ninkii la socday markii ay baxeen ayaa waxaa qolkii ka soo baxay daariq, waxaana u jeestay dhanka iyo fariid isaga oo ku yidhi waxaa la gaaray wakhtigaadii ee howsha aad qaban lahayd, ee bal howshaasi qabashadeeda ku dhaqso. fariid ayaa markii uu dhaqaaqay dhankii qolkii uu yaalla meydka, albaabka ayuu furay, gudaha ayuu u galay. markaas ayaa wuxuu in cabaara oo eega dhankii uu yaallay goobtii taabuudka ahayd ee meydka uu ku jiray. kadibna inta qolka albaabkiisii uu soo qooraansaday ayuu damcay in albaabka hoos uu ka soo xirto, balse lama filaan waxaa ku noqotay markii uu arkay daariq oo albaabka kusii riixaya qolkana soo galay. fariid ayaana markaasi daariq weydiiyey maxaa samaynaysaa. daariq oo gudaha usii galaya qolka ayaa wuxuu ugu jawaabay waxaan doonayaa inaan goobjoog aan ahaado inta hawshaan aad waddo adiga. balse fariid ayaa markaasi waxa uu ku qayliyey erayo ahaa maya waa mustaxiil iyo wax aanan dhici karaynin middan, waayo qaacidada asaasiga ee necromansiga waxay leedahay waa mamnuuc in la daawado qof ku guda jira howl necromansi khusaysa, waayo ruuxda lama sheekaysan kara necromansiga iyada oo goobta uu ku sugan yahay qof hawsha daawanaya. daariq ayaa markaasi wuxuu yidhi waxba igama gelin qaacidooyinka iyo sixirka madow iyo waxa quseeyaba, halkana kama tegi doono inta hawsha aad ka dhammaynayso. markaas ayaa fariid wuxuu yidhi hagaag, waad joogi kartaa, waadna daawan kartaa hawshan, balse hal shardi ayaan wataa oo ah inaad adiga aad ila cunto hilbaha meydka. miyaad waalan tahay adiga? maxay tahay waxaad ku hadlaysa? ayuu daariq ugu jawaabay isaga oo caraysan. kadibna daariq ayaa waxaa loogu jawaabay maya ma waalni, balse tani waa jidka keliya ee qolkan aad igula joogi kartid, waddo kale oo kuu furanna ma jirto. intaasi kadib daariq ayaa wuxuu isku dayay inuu arrintaasi uu hor istaago, balse fariid ayaa ku adkaystay ma doonaysaa in hawshan guul ay ku soo dhammaato, haa ama maya. kadibna daariq ayaa wuxuu yidhi laakiin balse yaara ayaa qolkii soo gashay, islamarkaana daariq ayaa waxay ku tiri ninkan faraha ka qaad, hawsha ha kaa qabsado, ogowna annaga waqti ayaa nagu socda, sidaasi aweed waxa ugu muhiimsan haatan waa inaan hawshan si degdeg ah aan u dhammaynaa, guulna aan ku gaarnaa, marka fadlan qolka isaga soo bax. yaara markii sidaasi ay tiri ayaa daariq dhowr tallaabo uu soo qaaday, waxaana u soo qaaday dhanka iyo albaabka. kadibna inta faraha gacmihiisa, indhihiisa iyo kuwa fariid uu ku qabtay ayaa wuxuu ku yidhi waa hagaag, waan tegayaa, balse xusuusnow inaan korkaala socdo. hal tallaabo oo qalad ah oo aad samaysidna xabsi dhulka hoostiisa ah ayaan indhahaad ku kala furi doontaa, ogow. fariid ayaana markaa kadib sidii daariq uu sameeyey oo kala sameeyey oo farihiisii ku fiiqay indhihii daariq, isagana wuxuu ku jawaabay waa hagaag, balse ogow waxaa macquul ah inaan anigana aan labadan indhood aan maalin gacanta ku dhigi doono oo aan cuni doono. intaa kadibna qolkii ayuu hoos ka soo xirtay oo hawshiisii ayuu bilaabay. markana aan eegno madilaagii ubaxa gaduudan ayaa lasoo qabtay. daariq wuxuu qiijinayaa sigaarkii u shidhnaa, weliba isaga oo si xoogan u cabaya, sidoo kalena indhaha wuxuu ku hayaa shaashada yar ee usoo gudbinaysa muuqaalka ninka qolka dambi baarista gaarka ah ku jiro, halka ninkana uu ku fadhiyo kursi loogu talagalay. waxaa ninka hortiisa yaalla miis iyo kursi oo miiska dhinaciisa kala yaalay. qolka ninkaani uu ku jira wuxuu aad u shabahay ama ugu ekaa sida qolalka saldhigyada booliiska oo dambiyada gaarka ah lagu baaro, balse ma uusan ahayn qolka saldhigga ku yaalay ee wuxuu ahaa mid si gaara loo diyaariyey laguna baaro dadka muddada howlgalkan uu u socdo. daariq ayaa naftiisii si hoose iskula hadlay oo markaasi waxa uu yidhi waa cajiib yaara sida ay wax walba uga fikirtay, wax walba sidii loogu talagalay ayay u diyaarisay. ninka qolka fadhiya wejigiisa waxaa ka muuqda walwal iyo qalqal cabsi xoogan lahayd, isaga oo kursiga uu ku fadhiya marba dhinac ugala soo jeesanayay. wuxuu aad u eegaya sawirada hortiisa lasoo dhigay oo miiska dushiisa saaran, waxayna sawiradan ay ahaayeen sawirada dadkii horey u dilay dilaaga ubaxa gaduudan.
in cabaara markii sawiradii uu eegaya ayaa inta uu kasoo jeestay dhanka iyo saqafka sare ee qolkii uu eegay, iyadoo indhihiisa aad mooddo in ilinta ay kasoo quban rabto, sidoo kalena afkiisana waxaad mooddaa inuu ku hadlaya hadalla aan la fahmi karaynin. intaa kadib daariq oo shaashadda weli eegaya ayaa waxaa usoo gashay yaara oo waxay ku tiri, sidee u aragtaa ninkan? daariq ayaa wuxuu ugu jawaabay, waa nin cajiiba oo caqli badan uu ka muuqdo. haddii aysan caddayn weyn gacantii igu jiri lahaynna waa rumaysan lahaa hadalkiisa. kadibna yaara ayaa hadalkii qaadatay oo waxay tiri, anigana waxaan hubaa markii uu Marwaan la kulmo inuu qalqali doono islamarkaana dembigiisa uu qiran doono. daqiiqado kooban ayaa kasoo wareegatay kadibna Marwaan ayaa usoo galay qolkii ninkii baaristay ku socotay uu ku dhex jiray. wuxuu bilaabay inuu ninkii waraysi ula yeeshay isagoo yidhi, haye maxaad isku difaacaysaa? ninkii ayaa hadlay oo wuxuu yidhi, aniga qofna ma aanan dilin, mana ihi dilaaga ubaxa gaduudan, wax kale oo aan ogahayna ma jiraan. intaa markii uu yidhi ayaa xogaa yar kadib inta uu aamusay waxaa haddana uu yidhi, waxaan doonayaa inaan qareen la xiriiro, waayo waxaan doonayaa inaan ogaado goorta ay booliiska ay bilaabeen in muwaadiniinta ay afduubtaan kadibna iyadoo indhaha ay ka xiran yihiin qol dambi baaris ay keenaan. Marwaan oo wejigiisa caro xoogan ay kasoo muuqatay ayaa markaasi wuxuu yidhi, waxaad doonaysaa qareen kuu gaara soo maahan, sidoo kalena waxaad doonaysaa xuquuqdaada inaad u heshid sida muwaadiniinta kale. sax, waa hagaag, tani cadaalad bay u muuqataa. intaa markii Marwaan uu yidhi ayaa inta kursigii uu ku fadhiyay uu gebi ahaanba ka kacay, miiska ninka hortiisa yaalayna labada gacmood si xoogan ugu qabtay. wuxuu ku garaacay darbigii hal mar, si xooga markii ugu sii daayayna miiskii ayaa jajabay. kadibna Marwaan ayaa kusoo haaday dhankii ninkii hor fadhiyay isaga oo kuleetiga iyo qoortaba isku qabtay, kadibna istaajiyey. isagoo sidaas ah ayuuna gadaal u riixay ilaa markii dambe dhabarka iyo madaxa qaybta dambe uu ku dhufsaday darbigii, xilli Marwaanna weli kuleetiga iyo qoorta ninka uu ku dhegan yahay. intaa kadib Marwaan oo weli caradii xooganeyd ay ka muuqato sidoo kalena aad moodid inuu qarka u saaran yahay ninkaani inuu nafta uu ka siibo ayaa wuxuu ku yidhi, si fiican ii dhegayso, lacnad baa tahay. waxaad mooday in qofka halkan jooga dan aan ka leeyahay xuquuqdaada gaarka ah. ma waxaad moodaa in kiiskan lagu haysto uu yahay mid iska caadi ah oo lagugula dhaqmaya sida loola dhaqmo dambiilayaasha ku lugta leh kiisaska iska caadiga ah. xuquuq iska daaya haddii loo baahdo, adiga oo nool baan maqaarka kaa siibaya, kadibna hilbahaga waxaan ku sii dayn doonaa oo aan siin doonaa eeyaha gaajaysan. ma jirto cid ii qabsan doonta waxaan adiga kugu sameeyo, taas beddelkeedana ogow, waaba la sacbin doonaa iyada oo weliba la ii hambalyaynayo. haatan waxaad ii sheegtaa halka aad ku qorisay amiiradda iyo sababta aad u afduubatay. Marwaan markii intaasi uu ku yidhi ninkii sidaas ayuuba argagax kale uu kusii geliyey. ninkiina gebi ahaanba ma uusan hadlin, taasi beddelkeedana ilin kale ayaa kasoo hoobatay oo waa uu ilmeynayaa. kadib Marwaan ayaa hadlay mar kale isaga oo yidhi, waxba ha ii ooyin, aniga si fiican ii dhegaysto dulliyahow. isku day kasta oo aad samayso wax faa'iidaa kuma keenayso, waayo aniga waxaan haystaa caddayn xoogan taasi oo tilmaamaysa adiga in aad tahay dilaaga ubaxa gaduudan. fursadda keliya ee aad u haysato inaad ka badbaado dil toogashana waxay tahay in aad si degdeg ah noogu sheegto halka aad ku qarisay amiiradda. ninkii ayaa markaasi kadib isaga oo hadalkiisa aad u muuqatay inuu daciif yahay waxa uu yidhi, aniga wax ma ogi, waxaan ogahay ma jiraan. Marwaan oo weli caradii sidii ay u hayso oo marnaba aysan ka baabi'in ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi, ma waxaad moodaa tani inay tahay kaftan, mise waxay kula tahay sidan inaad nooga baxsan karto kuna badbaadi karto? maya, aan warka ku caddeeyo, aniga sheekadaada way iga soo dhammaatay, balse ugu yaraan qoyskaada ka fakar. ma ogtahay waxa qoyskaada ku dhacayo haddii amiiradda dhibaato yar ay soo gaarto? ma isweydiisa sida ay noqon doonto nolosha carruurtaada haddii ay shacabka ogaadaan in aabbahood uu yahay dilaaga ubaxa gaduudan, sidoo kalena cadowga shacabka? hubaal dadka oo dhamme ayaa carruurtaada beegsan doona si ay u dilaan una dhibaateeyaan, balse waxaas oo dhan waxa ugu sii daran inaan aniga marnaba aanan awoodin shacab caraysan qof dhibaatayntiisa doonayaan inaan ka badbaadiyo. waa macquul maalmo ama waqti kooban inaan ilaalino, balse suurtagal ma ahan intii ay nool yihiin oo dhan inaan ilaalino. ninkii markii sidaasi uu yidhi kadib ayaa wuxuu kusoo hadal qaatay hadalla ahaa, aniga waxba ma aanan samaynin, qofna aniga ma aanan dilin, sidoo kalena amiiradda ma aanan afduuban. Marwaan ayaa intaasi kadib isagoo weli caradiisii ay ka muuqato waxa uu yidhi, isyaalyaalkan iyo inkirmaadan cidina ku qayaani ma karaysa dulliyahow foosha xun.
muddada ee marwaan iyo ninkaasi ay ka wada hadlayeen qolkii dambi baarista yaare iyo daariqda shaashadda ayay ka daawanayeen. waxaa daariq niyadda iska lahaa waxaa fiicnaan lahayd inaad adiga aad u gasho ninkan oo baaris iyo waraysiba aad ku samaysid, waayo marwaan ninkani wuxuu baaris ku wadaa in ka badan 3 saacadood ilaa iminkana wax natiijo ah kama keenin. balse daariq suurtagal ma ahan in uu isbiimeeyo ninkani wejigiisana uu tuso. waa muhiim inaana la arkin, waayo daariq marnaba ma doonayo inuu qofka wejigiisa u arko muddada howlgalka sirtaani uu socdo, gaar ahaana qofka lagu tuhunsan yahay inuu dilaaga ubaxa gaduudan u yahay. sababta daariq sidaasi u sameynaya iskuna qarinaya waxay tahay waayo ma doonayo in hadhow wejigiisa la aqoonsado marka maxkamadda la tago, islamarkaana dilaaga maxkamadda lala tiigsado. sababtoo ah xilligaasi waxaa caddaanaysa in daariq uu ku lug lahaa howlo aanan sharci ahayn, sidoo kalena cadeymahaasi uu keenay waxay ku keeni karaan qaab sharci darro ah oo maxkamadda marnaba ma aqbali doonto cadeymo si sharci darro ah lagu helay, xitaa haddii ay xaqiiqo ay yihiin. ninka meesha fadhiya oo dambi baaristay ku socoto waxaa sawirkiisa sameeyey Fariid, kadibna markii uu howlgalka necromancy-ga uu fuliyey ayuu sawirka ninkani uu habeeyey, isagoo Fariid u sheegay qofka dilay meydkan inuu yahay ninkan. sidaasi awgeed daariq ayaa durbadiiba sawirkii qaatay, waxaana uu kombiyuutarka guutada B6 uu ka raadiyey xogta ninkan, isagoo ugu dambeyntii soo helay xogta qofka uu sawiray Fariid, kadibna gacanta uu kusoo dhigay. ninka eedeysanaha ee loo haystay inuu yahay dilaaga ubaxa gaduudan ee gacanta lagu soo dhigay waxa uu ahaa macalin baraka ah oo dhiga maadada taariikhda, balse haatan howlgab ayuu ahaa. waxaa lagu magacaabaa Mansuur al-Wakiil. xogtaana waxay ahayd waxa ugu dambeeya ee daariq uu ka filayay in dilaagaasi uu lahaan doono. ma jirin qiyaas cayiman oo daariq uu ka haystay dilaaga, balse marnaba maankiisa kuma aysan soo dhicin inuu noqon doono macalin bara ah oo howlgab ah oo taariikhda dhigi jiray. markii Fariid howshee necromancy-ga uu dhameeyey kadibna uu sawiray ninkii dilay meydka, ayaa wuxuu sawirkiisii uu ku wareejiyey Yaara, iyadoo sawirka ay u dhiibtay Marwaan si uu ninkaasi u soo qabto. waxaa la qorsheeyey qaab nadiif ah in loo soo qabto oo aan laga shakinaynin, gacantana loogu soo dhigo sirna ay ahaadaan wax walba. qorshuhu wuxuu ahaa in ninka marka hore si gaara baaris loogu sameeyo ilaa uu ka qirta dembigiisa, kadibna qirashadiisa gacanta loo geliya booliiska, gaar ahaana daariq iyo guutadiisa. sidaasi awgeed muuqaalkiisii ugu dambeeyey uu ku qiranayo haddii booliiska gacanta ay ku dhigaan kadibna lasoo qabto maxkamadna loo soo bandhigo, waxay caddeyntaasi kaga filnaan doontaa in xukun degdega lagu fuliyo. waxa kaliya ee uu ninkaasi isku difaaci karay ayaa waxay tahay in si qarsoodi ay u afduubteen koox booliis iska soo dhigtay, kadibna dembigaani inuu qirtay ay ku qasbeen. balse su-aashu waxay tahay waa kuma qofka dilaa cadeymo lagu haya hadalkaasi ka rumaysanaysa. xitaa haddiiba ay dhacday in qofkaasi uu sheekadaasi uu ka rumaysto, ma jirto cid ihtimaam siinaysa in arrinta sidaasi ay tahay baaristan ee waqti badan ay qaadanayso. sidaasi awgeed qorshaha ay Yaare ay degtay daariq iyo Marwaan iyo Fariidna ay hirgeliyeen waxuu ahaa qorshe dhan kastaa ka dhammaystiran oo si fudud u suurto gelinaya in dilaagan xukun toosa loogu dhifto ama loogu fuliyo. balse haatan mushkilad aana maanka gebi ahaanba ku jiran ayaa soo baxda, taasi oo caqabad ku noqotay. waxaana ay tahay ninkan ay soo qabteen si kasta oo la yeelay wax dembi ama uusan qiranin, sidaasi awgeed caddeyntiisii lama hayo marnaba haddii uusan dembiga uusan qiranin. haatan su-aashu waxay tahay sidee laga yeelayaa ninkan si uu dembigiisa u qirto. halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee sheekada dilaaga ubaxa gaduudan. anigoo Maracade ayaa idinla socodsiinayay, waxaana ka daawanayseen Maracade Show. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.